guud waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imbarto awalan aan isku wada imaano midda labaad qalbiga aan wada jeclahay qof walba oo xisbiga UPD ka tirsan ama xubinka ama madax ka ah intaba si gaar ah dadka kale iga duwan yahay marka teamkan hadda halkan fadhiyo oo isoo dhaweynayana horta UPD aniga liguma soo dhaweynayo muqdishona liguma soo dhaweynayo waa halkii aan ku dhashay laakiin qalbiga waxaa i dareensiiyeen maaragtay wanaaga ay haydeen iyo galgacaylka ka xisbi ahaan aan isku wada haynay inta halka aan jiro marka taas ay muujinaydaa marka aad aan iga mahadcelinayaa anoo warka dheereynaynin hadda wax yar soo koobo xisbiga UPD qaybta Uganda waxaa maaragtay processkiisa soo bilowday June 2019 xilligaas oo gudoomiyihii ku-xigeenkii hore ee xisbiga xildhibaan Cabdifataax oo dalka Uganda oo safar noogu imaaday halkaas ayaan isku aragnay kadib jacaylka aan UPD maaragtay u qabay aan bal waxaan u sheegay bal in xisbiga UPD hadduu Uganda ka jirin in xisbiga halkaas laga asaaso xildhibaan Cabdifataax uu soo dhaweeyay wuxuuna sheegay in saacadan oo maaragtay sheegi kara in xisbiga oo halkan ka dhisan yahay inuu ka dhisnaan intaba laakiin markuu dalkii ku laabto uu jawaab soo sii doono marka September ayuu jawaab soo siiyay wuxuuna ugu xiray xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene xogayaha arrimaha dibadda xisbiga halkaas ay horta halgankii iyo hayaankii UPD ee qaybta Uganda uu ka bilowday kadib xildhibaan Beene caqabadahana qabsadaan iyo qodobo badan laakiin halkaas October ayaa waxaan horta ka hor waxaan awood saarnay bal inaan xisbiga dadka mid noqda xubno ka ah maamulna ka noqda intaba aan sameyno ilaahay aan noo hirgeliyay inkastoo bil mise 20 beri nagu qaadatay October ayaa waxaan hirgelinay in UPD isla 19kii aan dhisno golaha fulinta xisbiga qaybta Uganda waxayna ka koobnaayeen ilaa 12 xubnood kadib halkaas ayaa waxaan markaas helnay garbo oo xisbiga ku taagmo oo maaragtay wadajir aan wax ku wada maaragtay ku hawsha xisbiga aan ku sii wadi karno Habboon iyo Cabdirashiid markii golaha fulinta la asaasay oo hadee maaragtay aan noo imaaday Cabdirashiid waxaan ka wadaa halkaas ay ayaguna hawshii xisbiga ka sii maaragtay geeskooda ka qabteen oo ayagu wax badan ay naga ogaayeen oo hawshan mayna ku cusbeen sida anaga oo kale garab iyo gaashaanba intaba ay noo noqdeen labadaas qofood iyo dhammaan reer UPD inta halkaas joogtaba kadib waxaan dhexda u xiranay in xisbiga aasaaskiisa aan weyneyno micno weyn u sameyno halkaas xalfad oo hadee aad looga qalbigayga kama gooyay habeenkii ay dhacayday xaqiiqatan ma umaleynaa intaan noolaa inaan maaragtay farxad ay taas ka weyn aan arkay quruxda iyo miisaanka ay lahayd maaragtay xalfadaas halkaas ayaan 2020kii ku daafurnay bishii koowaad bishii afaraad aan ku daafurnay UPD waxa miisaankaas iyo qiimahaasna u yeelay gudoomiyahayga gudoomiye Xuseen Jimcaale Madaali iyo xildhibaan Beene iyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi
ayay ahaayeen wixii quruxda badnaayo meeshaasi ka dhacay lafdhabarta iyo qeyb weyn ka ahaayeen waayo haddii waxaan aaminsanahay haddii ayagu ahaa lahayn habeenkaas saas uma qurxoonaan lahayn marka heer Ugandana fariin cad ayay u direen UPD oo ah in xisbiga lagala soo daahay waayo maba dhicin inta xitaa madaxweyne Soomaaliyeed hadduu taga xataa halkaas ma dhicin sida UPD loogu soo baxay cid loogu soo baxay meeshaas waxay marka waxay taas ay dareen iyo fariin u ahayd in UPD mar hore meesha lagala soo daahay waxaan tusaalayaal u noqonay xisbiyo kale oo siyaasadeed nagu dayday marka halkaas markii nolol daafuray oo mas'uuliyiinta xisbiga ay nolol daafureen waxaa noo bilowday shaqooyinkeena xisbiga waxa ugu weyn oo anaga maaragtay meesha nagala rabo inaan qabano waxay ahayd in maaragtay dadka reer Uganda halkaas ku nool afkaarta iyo siyaasadda xisbiga aan ka gadno aanan gaarsiino fariintaas intiina aqbasho oo maaragtay naga ajiibto fariintaasna in xisbiga aan ku soo darno mas'uuliyadda koowaad oo nasaaran midaas ay ahayd ilaahay mahad iskale inkastoo dad aad u fara badan aan ka gaari weyna laakiin in ku dhow maaragtay 300 oo qofood oo xisbiga UPD u diwaan gashay qaybta Uganda ayaa maaragtay muddadii aan jirnay aan diwaan gelinay boqolaal kale oo ka badanna COVID-19 kii awgiis maaragtay oo na saameeyo dalalka anaga muddo hal sano iyo bar ku dhow dalka uu iska xirnaaba waxa waaye guryaha joognay laakiin bilooyinka yarkeeda aan shaqeynayna intaas ku diwaan gelina waxaan aaminsanahay haddii si toos aan u shaqeyn lahayn in maaragtay wax badan aan qaba lahayno reer Uganda haddii is diwaan gelin karo bal is diwaan gelin lahaayeen marka intaas wixii nagu weynaay aan qabanay ahayd sidoo kale inaan anaga caasimadda joognay aan gobolada oo Soomaalida ku nooshahay xisbiga gaarsiin afkaartiisa xisbiga u dhaweyna ilaa dhowr gobol ayaa maaragtay munaasabooyin ku qabanay halkaasna xisbiga maaragtay wakiilo aan ku yeelanay marka si dawlad ahaan oo nidaam dawladeed oo baahineed aan u shaqeynaynay marka xanga joognay siyaasadda iyo afkaarta xisbigana munaasabado aan ku soo bandhigeynana way jireen ilaa dhowr ah wixii aan in sheegi lahaay oo xisbiga halkaas ay marayaan haddana waxaan salaan qiimo badan oo reer UPD qaybta Uganda aan haywaayo bal inta aan meeshaas ka tagaayo aan dararsanayo horta aan iga wada dhammaan way soo salaamayaan xubnaha xisbiga maamulka xisbiga qaybtaas shaqadii xisbigana haddana ilaa hadda way sii socotaa oo hadda waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ayaa hawsha sii wada hadda isla hadlayno waxay sheegayaan inay munaasabad ay xisbiga u qabteen maaragtay oo dad lagu soo dhaweynayo oo ilaa 20 qof ay sheegayeen marka hawsha xisbiga way socotaa aadaan ugu faraxsanahay maaragtay inaad soo dhaweysaan oo maaragtay aad xisbiga inkastoo horena waa u sheegay laakiin mar walba iyo xilli walbana waxaan maaragtay u taaganahay ka qaasatan aniga u taaganahay inaan xisbiga UPD anigoo wax shuruuda aan ku xireynin aan mar walba diyaar u ahay inaan u shaqeeyo qaybna ka noqdo waqtigeyga qayb kamidana aan ka siiyo aan mar walba u taaganahay xil khadaaytu waxa ka dhawaajoodan xil haduu rabana waa siinayna horta anigu waxa aaminsanahay in xil kaliya lagu dhiibo aad ku shaqeey karin ee adigoo xataa xumina ama maaragtay kan ka sareeya aad ka saameyn badnaa karto wax badan aad soo kordhi karto marka waxaan leeyahay xilka waxa iga qiimo badan inaan iniga in la shaqeeyo wax qurxoon iyo fikradaheedana aan maaragtay inta haayo aan maaragtay igu kaabo aad u maasantiin